faahfaahinno kala duwan waxay ka soo baxayaan qarax miino oo ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM lagula egtay gudaha degmada Hilwa ee gobolka Banaadir. ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa wadanka Uganda oo ku safrayay qaybo ka mid ah gudaha degmada Hilwa ee gobolka Banaadir siiba suuqa xoolaha ayaa la sheegay in qarax miino halkaas lagula egtay. gaari ay wateen ciidamada AMISOM ayaa la sheegay in miinadu ay haleeshay isla markaana uu gabi ahaanba gaarigu gubtay waxaana la sheegay in 3 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM dhaawacyadooda halkaas laga qaaday. qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay goob ay horey u deganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliyeed waana goobta loo yaqaan S Company oo ah meel caan ka ah degmada Hilwa ee gobolka Banaadir. goob joogayaan aan la hadalnay ayaa waxay noo sheegeen in indhahooda ay saareen asgar ka tirsan kuwa AMISOM oo qaraxaasi ka badbaaday kuwaas oo goobta isxiray waxaana la sheegay in rasaas ay fureen. rasaasta ciidamada AMISOM fureen ayaa la sheegay in qof shacab uu ku dhaawacmay. xaaladda goobta oo qaraxu ka dhacay ayaa hadda waxay tahay mid degan ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan laakiinse shabaab ayaa inta badan waxay qaraxya ku weeraraan ciidamada AMISOM iyo kuwa milatariga ee ku sugan koonfurta bartamaha Soomaaliya siba magaalada tan caasimadda ah ee Muqdisho. wixii warar oo ku soo kordha waa idin soo gudbi doonaa haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkan si aad u hesho wararka degdega ah iyo warar kale oo xaqiiqda ku saleysan hana ilmaamin inaad furato gambaleelka.